Xukuumadda dalka India ayaa goosatay inay ka dalbato shirkadaha gaadiidka kirada ee gaarka loo leeyahay inay u bedelaan 40% gawaadhidooda kirada ah kuwa korontada ku shaqeeya marka la gaaro sanada 2026 sida lagu ogaaday ila wareedyo la helayo iyo dukumeentiyada ka soo baxay shirarka xukuumadda waxa la fari doonaa shirkadaha inay si tartiib ah ugu wareegaan gawaarida korontada ku shaqeysa iyadoo marka la gaaro 2021 gawaarida korontada ku shaqeeya la doonayo inay gaaraan 2.5% halka 2022 la doonayo in la gaarsiiyo 5% marka la gaaro sanadka 2023 10% halka 40% laga rabo inay gaarsiiyaan marka la gaaro 2024 sida uu sheegay website-ka The Next Web ee dalka Holland laga leeyahay waxa suurtagal ah in xukuumadda ay ku xirto in gaadiidka danta ganacsi loo soo iibsanayo sanadka 2026 ay waajib tahay inay noqdaan kuwa koronto ku shaqeeya waxa qorshaysan in sharcigan laga dhaqan geliyo dhanka mootooyinka ay isticmaalaan shirkadaha ka ganacsada elektrooniga bilowga 2023